بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارته نداوانيسا magacaygu waa mawliid maxamed shuuriye waxaan maanta aan soo booqannay mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xaafadda Tanisley ee magaalada Nairobi oo uu canug ka xanuunsan yahay waxyaabo dhowr ah ayay noogu warami doontaa hooyo soo dhawow magacaado saddexan hadaad noogu bilowdo ayaan jaamac cali yaa la dhahaa cunugaygan waxaa la dhahaa cabdinajiib cabdi waa maamo iska dhibaataysan oo cunug ka xanuunsan yahay ahay waa mahadsan tahay marka waraysiga ayaan gudagelaynaa adigoo mahadsan bal waxaad ugu horreyn noo sharaxdaa canugaagan isaga ah xanuunka haya waa maxay sidee loo hayaa wallaahi maskaxdu ka jiran yahay intii 9 sano ah marka dhaqtariinta waxay dhaheen markay arkeen waxba lagama qaban karo ayadoo sidaasaan iska haystaa haddana cuntadii uu soo celinayaa operation u baahan yahay leer maadaama cuntadii ay sabeerka gaareen subaxii waxaan siiyo ilaa 6 saacadood uu mataqaaya kuma istaagayso haddana indhihii beelayba waxa matagiiba indhaha tiray ilba hadda u daran ilyar wax yar ka arkaa habeen ma lugtaan ka xiran yahay muxuu ahayd daawo ku shaqeeyaa oo habeenkii daawaan siiya subaxii daawaan siiya uu qalalay marba koomu galaa qof waxaystana mihi oo qof iska dhibaataysan ahay hadda dad islaama soo dhaweeyo inta keenay marka saas ay haysato sadar muuqdo su'aal ka dhan waad u jeedaan canuga hooyada iyo inoo waramaysa inay gacanta haysa dhankaasina lugta ay xiran tahay mataga ay mar walba ka tirtirayso siday sheegtayna muddo 9 sano uu xanuunkan uu qabo madaxa la garay waxaad noo sheegtay dhanka dhimirka inuu ka xanuunsan yahay maxaa kaloo ku dhacay ama xanuunka ku dhacay muxuu yahay ee cuntada uusan u reeban karin halkee laga hayaa si gaar ah waxaa la igu dhahay meesha cuntada ay qof ilmaha markay dadka cunada cunaan ay saldhiga u aheeda operation u baahan marka waxaa la yiri 3 bilood in cuntada dhinac laga siiyo waaye oo la qalo kadib markaas hadana laga bixiyo meeshii operationkii markaas kadib uu cunugaas cuntada ku istaagaysaa hadda iluu beeleysha kale inuu si beela halis ah maadaama marka ay dhaqtariinta dhan maskaxda arda dalka waxba loogama qaban karo operation kaanne cuntadan aan ku istaagayna aan iigu daranba ilaahay wuu qabnaa dhimirka 100 dhimir la aaba wadanka joogto laakiin qof risaaqadii marka la siiyo biyo la siiyo soo celinay cuntadii la siisaan u soo celina matag hada hal mar intuu matago oo ka ba'ay ma waa matag joogta duhur daxta saanay uga soo daadanaysaa matagi canuga isaga ah masaajir waaye xanuunkan ma ku dhashay mise intuu dhashay kadib ayuu ku dhacay labada xanuunba maya 3 sano asagoo jira meel uu ka dhacay jaranjara maskaxda cilada ka gaartay marka matagaan mar dambaan ku aragnaaday intii 5 sano matagaan wada uu ka soo dar indhii ilaa uu beelo waay xanuunka dhimirka ahna ilaa iyo 9 sano qaba 9 sano qaba asaga hadda 12 sano jira uu qalala habeen maalin daawo lagu seexiyaa habeenkina daawo ku seexin doorkina daawo ku seexina daawada la siinaya wax intee dhan ayaa la siinaya ay qarashka ku baxayna waa imisa bishii waxa waay daawada bil walba 6 waay marka kaadida iyo xarkina ma ceshanayo waa kasban baaskaas oo xiran haday baahiyar qabatana matagaas isagoo wada joodarigu cuni bambaasku cuni korkiisu cuni aanu idili haday baahiyar qabato ilaa matagiya cuntada ku soo daadinaaye qof maanta waxaysato oo maaragtay shaqaysan kartana ma ihi aabisna waaba kala tagnay bari hore marka wax uu haystana asagoo anagoo kala tagnay ma jirto waan ku fahmay bal marka waxaad nooga warantaa tan iyo markii labadan xanuun aad ku aragtay dhanka dhimirka lagu sheegay iyo sidoo kale xanuunkan kale uu heliya inta maro isbitaalada geysay dhaqaatiirta waxay ku sheegeen xaaladiisa caafimaad in gudaha wadanka wax looga qaban karo iyo rajadu siday tahay wallahi waxay ugu dhaheen dhaqtariinta aan horto aan barigi hore la kulmi jiray waxay ugu yiraahdeen dalka waxba loogama qaban karo cunugan in dibadda loo qaado waa kubii waa qaxootiga markii la yaqaabilana taraamaaba dadkii diiday oo dhaqtar la ii gudbiyay kadibna marka hadda kuwaan la imaado waxay dhaheen dhimirkan waxba kama qaban karnee laakiin operation aan ku sameyn karnaa matagaan oo hadda uu matagaayo
saddexdaas bilooda cuntada ka siinaynaa jirkiisa usoo noqonaa isha kalena ma beelaayo hadda ilaa eber bal waxaad nooga warantaa marka halka aad degan tahay oo sidaad noo sheegtay xeryaha qaxootiga aad ka timid iyo nolosha aad ku nooshahay duruufaha nololeed ee kale marka laga soo tago xanuunka canuga si guudba noloshaada iyo midda caruurtaada nooga warbixi wallaahi awalba gabar baa wax noo soo diri jirtay gabadhiina waxay tidhaahday waxaan idiin haya hadda ma laha qaxootiga beriga hore uu iska roonaayo kaarka wax lagu qaadan jiray hadda qaxootiga kaarka waxba dadka laguma siiyo marka sidii darteeda ilmihii qaarna kasoo tegay qaarna labana isoo raacday oo intay imaadeen gabadha saaxiibna han kusoo degay oo gurigan iyo waxaan ii dhigtoo tiri maadaama cunug dhiban aawad halkaas islaamka ilaahay in u qayliso anigana waxaan kuga caawinaa kiradaasaan kaa bixinaa ila cunug xanuunsan baa wada tahay marka saasaa jirto marka bal canugan isaga inta uu xanuunsanaa xaaladiisa maxaa iska bedelay 9 sano ka hor ama 6 sano ka hor sidan ma dhaantay ma sii darsaday haa wuu sii darsaday sanadba sanad ka dambe wuu ka sii daraayay markuu hadda 5 sano jira tuunjo uu doonanayay wuu ku fariisanayay hadduu fakado waa lasoo qabanayay laakiin hadda daqiiqad haddaan dhaho xataa qoraxda u bixi uu qalalay uu koomuu geli marbu iska dhacaa haye markaan guriga keenana wax walbuu jajabinayaa lugtaasaas ooga xiran anigii markaas iraahdo bal xataa meelaha qaraab uga raadi ama usoo shaqayso ama islaamka dhexgal waxaan imaanaa ama asagoo meel kasoo dhacay ama asagoo daqramay ama asagoo joodari cuna ama bambaas cunay xaarikaadii isku haleeyay aan imaana abii markii aad kala tegayseen dabcan xanuunkan wuu qabay ma isfahan waa kala idin dhex maray mise xanuunka canuga ayaa sabab u ahayd inaad kala tagtaan ma dhacda inuu kugu dhibsaday wallaahi ilaaha og laakiin calafkiina waa kala dhammaaday tabarna waa maaragtay meeshii cunugaas dartiis maama hadduu cunug ka xanuunsan yahay waa iska stress badan tahay moogta stresskaasaan ku kala tagnaaday waan ku fahmay bal dhanka qoyska haddii aan su-aalkaa weydiiyo iyaa kuugu dhow oo qaraabada iyo ehelka ah ama waalidiinta oo nool ama kaa warqaba xanuunka canuga wax ka og halkii aa ka timid ee qaxootiga ee kugu caawinayay alla kadib yaa ehel ah oo gacan kuu fidiya horta ani walaal mabali hooyadayna beri horey dhimatay aabahayna waa yeel waa Soomaaliya jooga oday waa yeel awaa walaalana aniga bisaaba u noolba odayga hadda wax qaraabo oo eed iyo adeer iyo habaryarna ma jiraan qaraabo aad maanta ii joogto waxay siinaysaa ama igu og cunugan malihi intaana hawada soo galin waxa noo sheegtay inay jirtay gabar wax idin soo diri jirtay ma walaalaatiin maay gabadha qaxootigan daris ku ahaan jirnay marka waxay tiri waxba kuuma heli karo wax badan ay soo caawisay Nairobi hadda aad joogto qaab sideed ku timid gurigan isaga ah ee degan tahayna kirada la bixiyo waa imisaayana ka caawiya wallaahi 9,000 waay gabar saaxiibtay iga bixiso soo dejisay inta muddo intee dhanaad hadda inta joogto hadda inta waxaan joogaa 8 bilood meelahaas 8 biloodba kiradeeda gabadha bixisay gabadhaas iga bixiso ما شاء الله marka kirada laga soo tago qutul maalmeedka kale iyo cuntada iyo waxyaabahaasi bal ka waran iyo biilka iyo idin ka caawiyo qofkii islaam oo wax markaas haystaba uu isiyaa wuxuu leeyahay cunugeys ka waran seetaha intaas maanta karso maana wax meel saaran oo aan ku hagaagay mal markii dabka iga dambe waan carari hadba qof baa u tagay ما شاء الله الله يو umada dhibanayaasha gacanta u fidanaya u gargaar haddii marka aan arintan aan dib ugu soo laabto bal ka waran culayska ku haysta iyo duruufaha nololeed adigoo eegaya sida adigii caruurtaadaba aad u heshaan quraacda qadada iyo cashada bal nooga sheekee wallaahi maalinba saas waaye maanta haddaan dab shidan caawo beri qofaan u tegi hadda xataa gabadhaan ku leeyahay dukaanay leedahay waa saacidaysaa lacag badan ay ugu leedahay oo 20,000 ku dhow adi bay ugu leedahay keenay ma dhahdo waxay leedahay dabka aadama soo carar ii imaa wax u qaad ilmaha maxaa kugu dhacay ay dhaysaa marka wax deyna kugu leedahay oo ay ku qoraysay ma jira hadda 17,000 inay dhaafsantaan u maleynaa wali bambaaska cunuga iyo caanaha iyo maaragta sokorta ugu badatay marka laga soo tago qarashaadka kale canugan isaga ee xanuunsan waxyaabaha ku baxa sida bambaaska aad sheegayso kale daawada niyada ah caanahan bishii oo kale imisaa ku bixi karto daawada bishii waxa waay 6,000
bambaaskan waxaa waaye 2 xabaan usoo qaadaa oo 1,000 ah 900 ah aan usoo qaadaa midkiiba 900 haa midkiiba 900 waaye waa 1,800 haa iyo daawada oo 6,000 ah marka bambaaska isaga ah ee 1,800 bil dhan ma ku filan yahay haa bil uu ku filan yahay 1,800daas maxaa kaloo qarash oo sii dheer yacni wiilkaaga keliya carruurta kale marka laga soo tago wiilkan cuntuu rabaa 3 waqti cuntaan loo siiyaa uu rabaa qado quraac cashuu rabaa ilaan gaajo maadkiisana waa kan joodariga cunayo bambaaska cunayo googoosanaya aniga marka aniga aan qiyaaso asaga adeegiisa 5,000 ma ka badnaanayso haa inkastoo wadi yaani adii la isku dardaro adiga 10,000 waaye inkastoo noo sheegtay inay cuntada u istaagaynin laakiin wax kale oo cunto kale oo yacni carruurtan kale aan la siinaynin oo isaga nafaq ahaan u fiican oo qarash gaar ku baxa miyaa jira mise cunada caadigaa la siiyaa cuntadaas caadigaan siiya uma haayaba wax gaar ah ma siiyo waxaad nooga warantaa bal habeenkii jiifka waa sidee haddaan daawo waayo oon kaniinigaas habeenkaas ii gembiyo caawa oo dhan wuu qaylinayaa darbiyadu qaraacay darbigu qadariska taa xira maxaa kugu dhaca dhibki jira maxaa caawa oo dhan wuu qaylinay joodarigu cunaa anigu qaraaca asagaas qaraaca dhiiga iska keena bambaas ku bixina aniga waaga ibriyahay maalintaas kala hadaan waa daawadii ama aan xambaara ama aan meel ka laabto inaan daawadaas helo waa waagi hor meel free aan ka qaadan jiray meeshii freega ahaydna waa laga waayay oo meelahan maaragtay dawladda leeda aan ka heli jiray UN-ta hadda kiniinigaas markuu helo waxaaba u malaysaaba saan inuuba dhaamaba marmarka qaar haddaa aragto 4 saac wuu qalali markuu miirsadane wuxuu hayo kuugu dhudhufanaa daawadayaal waad u jeedaan hooyada canugina way la xarbinaysaa oo way celinaysaa lugta ayuu ka xiran yahay annagana way noo waramaysaa dabcan waa arrin taabashadeeda lah intii waraysiya bini aadanimo aan qaadayay waa midkii igu taabashada badnaa aad ayaan uga damqaday runtii marka allah culayska ka dulqaado allaha caafiyo muslimiintana daawanayana mase muuqaalkan dib u arki doonana waxay hayaan allaha ka soo qaado bal arrintan haddii aan dib ugu soo laabto waxaad nooga warantaa inta kira ayaa ku jirtaa oo kiraad bixinay sida ii sheegtay lagaa bixinaya xerada qaxootiga ee joogtay yacni waa xerade waa kaa kuma muddo intee dhan halkaa ku nooleed wallaahi 10 sano 10 sano anu nimaano markaa bal xagga yacni nolosha siday tahay guri kiro oo aad bixinaysa miyaa jira maya annagaa guriga lahayn oo deganeen wiilkan xanuunkiisa iyo duruufaha ku haysto cid horay aad isku fiicneedeen mise aad isugu dhaweydeen ku soo booqan jirtay mise macrifo kale idinka dhaxaysay ama aad guri ka degteen oo idinku dhibsatay dhibaato dhankiisa ka soo gaartay oo bulshada dhexdeeda miyaa jirta hadda markaan islaado qoraxda gee ama garoonka gee waa lagu soo wada shamuuma magta cunuga laga fiirinaaya sidoo yaala maxaa galabsatay maxaa sameysay markuu sidaa noqonay lacag la'aanta iyo faqrinimada iyo wiilkan jiradiisa maxaa walaalay galabsataa lagu dhahaa waa arrin xanuunkeeda leh in culays iyo xanuun alla uu keenay la isku naco la isku faquuqo bal markan intaanan haayeen way iska jiraan dad oo markay ku arkaan ku caawinayana way jiraan dadka isku mid ma aha dada saxaan ku sameeyna markay ku arkaan cuntadan daadanaysa wax looga qaban karaa madii la qalaayeen waxa la yiri markii ugu horeysa 400 oo kun waa 400 oo kun oo wixii soo baxayna markaas ay gadaalka imaanay la cooperationka ugu horeeya 400 ku shubay marka wax kale oo qarash kale oo 400 ka dambeeya miyaa jira waa u maleynayaa ilaan 3 bilood hadii baab uu ku jiraayo daawona la siinayo wixii soo baxay ma sheegi karaan wali ma isku dayday inaad quraan saarto ها شفوين ولقيس بقرآن سارج رياليس هيا ولقيس قرآن سارة مر والبابا qof culimo ah oo xaaladda canugan ka warqabo oo ku imaado oo quraan saara ma jira wallahi waxa deer oo gaar ii ah ma jirto laakiin dugsigaas aan geen jiray quraamada mar shifadaan geen jiray oo shifo ku taala jaamka aan geenayay oo lacag la'aan la igu quraaminayay waxaan ummadda islaamka ka codsanayaa meel walba ay joogaan inay caawiyaan maadaama cunugay oo intaas oo sano jiranaa
oo haddana la dhahay indhihii beelay maskaxdii indhihiiba ugu darsantay cuntadii aan ku istaagaynin in ay isaacideeyaan qarash badanaa lasoo sheegay 400 la yiri marka hore waa lagu qalayaa wixii marka gadaal ka soo baxay iyo wixii hor macnaha la qaadanayeen aanan sheegi karin intay noqonayso islaamka meel allaala meel jooga wixii ummadda islaamka ama afka Soomaaliya ku hadlo oo dhibkayga maqashay inay isaacideysan jeclaan haddii aan wax yar dib kugu celiyo xaaladiisa caafimaad muddo intee dhan ayaa wax looga qaban karaa bay ku dheen yacni halis ma jirtaa cabsi jirta waxay leeyihiin wuu raysanaya jirkiisaan oo sidaan u baaba'san uu soo noqonaa saxaradan iyo waxaan xataa kontarool ay yeelan haddii la qalo indhahaana aragtidiisu way fiicnaanaysaa xataa indhaha u soo noqonaynaa dhee marka cuntada laga hagaajiyo isha soo soo laabanaynaa dhee wax laga qaban karo inka aad iyo aad u mahadsan tahay daawadayaal waxaa intaas inooga dhan waraysigii aan la yeelanaynay hooyada Soomaaliyeed oo degan ama ku sugan xaafadda Islii oo aan maanta soo booqanay waxyaabo badan ay nooga warantay runtii canugeeda oo xanuunsan 12 sano jir ah muddo 9 sano aan xanuunsan dhimirka ka xanuunsan cuntadan aynu istaagaynin oo xitaa aad u jeedaan sida ay yani idin tusayso in bambaaska xitaa yani saxarada looga reebayo dhan waliba marka waa arin taabashadeeda leh xanuun badan runtii waxaana dareemi kara qofka dhibaatadan ay haysata oo waalid wax dhalay ah oo canug uu ka xanuunsan yahay oo ehel iyo wax ka agdhow aanan lahayn muddo 12 sano ah mise 9 sano ah waad qiyaasi kartaa annaga caafimaadka leh wax yar hurdalaan haddaad iska weyso walwal ayaa ku gelaya dhibaato ayaad u arkaysaa inay kula soo daristay bal ka waran hooyo Soomaaliyeed oo aanan lahayn aabba garab taagan ehel garab taagan dhaqaale iyo waxay isku kaafin karto ayna intaa u si dheer tahay canug ay dhashay inuu 9 sano uu xanuunsan yahay ayna dantu ku qasabtay inay mar walba u taagnaato oo ay lugta ka xirto mataga si joogto ah uu uga socdo oo ay noqonayso in la tirtiro hurdadii aynan ka imaanayn oo tahay in daawo lagu hurdi yani la siiyo si ay hurdo umaado gaajada sidoo oo kale dhawaaqi iyo qayladii sidoo kale qarashkina aynan bixin karin intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa waraysiga anigu ah Mawlid Maxamed Shuuriye oo waraysanayay hooyada iyo Farxaan Cali Muqtaar oo sawir qaadaha ah waad mahadsantihiin waxaana filayaa in aad si bani aadanimo leh si muslimnimo leh si Soomaalinimo leh aad uga soo ficilin doontaan